salaamun calaykum caayda ugu xun ee dhegahaaga soo gaareen horey ma lagu caayay caayda ugu xun ee adduunka aad ku maqasho sidaan wada ogsoonnahay markii baraha bulshada la fiiriyo waxaa jira dad caadaystay inay dadka caayaan oo aflagaadeeyaan afkooda mar walba xumaan ka soo baxdo haddii aad soo gasho TikTok oo kale waxaad arkaysaa dad isku caynaya muuqaalo kala duwan qaar isku caynaya kommentiyada ama faala bixinta ilaa qaarkood ee kommentiyada faala bixinta ay ku qoraanba in haddii iyaga la caynin bay iyagana dhahayaan alla sidaan idin yeelo hawaar iyo waxaan loo joogin la imaanaya oo yacni ku raaxaysanayaba in la caayo waxay noqotay caydii wax lagu faano oo lagu socodsiiyo muuqaalada iyo daawashada xadiidka macnihiisu yahay dadka waxaa naarta loogu shubaa ilaa wixii carabkooda ay soo gurubsadeen mooye tilmaamaha qofka wanaagsan waxaa ka mid tahay in afkiisu ka adkaado caydii aflagaadadu iska ilaaliyo وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما caydii aflagaadada ma saameynayso qofka kale ma gaarto waxaan dhaafsaneen inuu afkaaga hadallo xun ka soo baxay mooye caayda waxay tilmaamaysaa qofka inuu maangaabiya caqligiisa gaaban yahay ilaan wuxuu u arkaaba inuu wax ku helayo qofka kale hadduu asiir maskaxdiisa u ogolaaninba caaydan uu waxweyn ka dhigin oo buunbuuninin wax ay qiimo leedahay ma jirto